ganacsato Soomaaliyeed iyo ganacsato ay shirko yihiin oo ajaaniba ayaa shalay magaalada Muqdisho ku soo bandhigay mashruuc cusub oo ay deegaan casri ah kaga hirgelinayaan deegaanka Jazeera ee magaalada Muqdisho. Mashruucan cusub oo hirgelinaya xaafad cusub oo loogu magac dari doono Jazeera Estate ayaa waxa ganacsatadan ay sheegeen in ay ka dhisayaan ilaa iyo 1200 oo guri. Xaafadan cusub ee la hirgelinayo laga dhisay deegaanka Jazeera ayaa dhismaheedu waxay isugu jiraan goobo la dego, goobo ganacsi, masaajidyo, kuwa lagu nasto oo bilic iyo tayo heer sare ah leh. haddaba wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa waxa uu arrimahaasi inooga hayaa warbixinta. mashruucan laba oo Soomaali qolona ajnabiga tahay ayaa ku heshiiyay inay mashruuc u shirkoodaan isla maalgeliyaan dhul dhan adiga maasimo 400 oo boos. dhulkaas wuxuu leeyahay suuqa wuu leeyahay guryaha wuu leeyahay siday balan qaadeen oo sheegeen. marka mashruucaas weyn ayuu ahay mashruucu laba kambaniyo Soomaali iyo kala ah oo ahay. marka anaguna waan soo dhaweynay mashruucyada degmada wada jirka furan amba ka bilowdana mid ka adow maahana waa koonfurta Soomaaliya maajarkii laga furayaa kamida ayba kala badana kamida. marka aad iyo aad ayaan soo dhaweynaa mashruucaas iyo waxna ka horeeyaan waxna ay ka dibnaadin la rabo. aad iyo aad ayaan soo dhaweynaa. waxa la ii sheegay in deegaan la magac baxay Jazeera Estate laga sameeyo deegaanka oo degmada wada jir hoos imaanaya. marka ma deegaan dadku ay degayaanba ma goobo ganacsiba muxuu noqonayaa? meel haddii dadka ganacsiga iyo degitaankuba waa iswataan. marka meel aan la bedelayna lagama ganacsan karo, meel aan ganacsi lahayn lama deganaa karo. marka dhammaan waa iswataan magar. labadan company ee Soomaalida iyo ajnabiga isugu jirta ma soo bandhigeen lacagta ku baxaysa mashruucaas intay leegtahay? wallahi faafahinta imartiin aniga lacagta laakiin ismaha iyo dhisayaan iyo wax qabadkooda ayay soo bandhigeen. lacagtana dabcan iyaga cidii shirkada ku jirta ayay u kala qoran tahay. marka annaga wixii wax qabadka ah ayay noo soo bandhigeen magar. ismaha waqti dhow ay noo sheegeen laakiin maalin hebel lay ma soo dhimin. laakiin marka dhagax dhigiisu wuu dhow yahay wayna nagu yeeri doonaa insha Allah iyo waan dhagax dhigi doonaa. dhismahan cusub ee laga hirgelinayo sida aan ku aragnay sawiradiisa iyo waxyaabihii ay ganacsatadu soo bandhigeen waxa ka muuqday in dhismooyin casriya oo la mid ah dhismooyinka guryaha wadamada hore maray ku yaala oo kale. waxaan arkaynay guryo dabaqyaha aad u qurux badan oo nooca apartmentska looga yaqaano wadamadan reer galbeedka iyo meelo u eg in xeebta Jazeera la dul saaray oo ay ku dhowdahay markaan naqshad aragnay oo qurux badan oo geedo iyo ay ku yaalaan. marka waxa sawirka ku qoran ma waxa ay ballan qaadeen inay meesha ka dhisayaan baa mise waa sawirro ay tusaale u soo qaateen? hadda qofku haday hawsha gasho ayaad arki kartaa ficilkeedii iyo qowlkeedu inay israaceen. laakiin qowlka ficilkii weli ma gaarin laakiin inay qabanayaan ayay noo sheegeen oo siday hadda sawirada ay soo bandhigeen inay wax qabadkoodu sidaa yahay noo sheegeen. waana ka rajaynaynaa inay ka dhabeeyaan waxay shacabka tuseen ambay bulshada tuseen. waan ka rajaynaynaa waxaana ku jirta dhanka dalka iyo deegaanka iyo danahoora gaar ahaaneed oo intaba waa isula jira. marka inay ka dhabay doonaan